madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa mar kale qaaday tallaabo u muuqata in uu ku dhabar jabinayo dowladda Soomaaliya si gaar ah madaxweyne Xasan Maxamuud laakiin dowladda Soomaaliya way ismaareysay iyada ayaana kala soo hormartay warkii Mareykanka dowladdu waxay sheegtay in Mareykanka ay kala hadashay arrimo xasaasi ah maxay yihiin arrimahaasi xasaasiga ah ee dowladdu kala hadashay iyo bahdilka loo geystay Xasan Sheekh maalinba Soomaaliya meel ayay joogtay maleeshiya beelad ayaa isku hor fadhiya beer xashiish lagu beero oo ku taala Shabeellaha Hoose hadii ceel biyood dhul beereed iyo dhul daaqsimeed la isku dili jiray laba maleeshiya beelad oo hubeysan waxay isku hor fadhiyaan beer lagu beero muqaadaraadka loo yaqaan xashiishka waxaana ay ku taala koonfurta Soomaaliya gaar ahaan Shabeellaha Hoose sidee wax u jiraan wararkaas oo dhan soo gudbinaynaa aragtidaada ka dhiiba muuqaalka like saar siina share garee waa mahadsan tahay warka dowladda Soomaaliya waynu u soo laabaneynaa dhacdadan marla arag ah aan ku bilaawna bal wararka ka imaanaya gobolka Shabeellaha Hoose ayaa sheegaya xiisad u dhaxaysa maleeshiyaad ka soo kala jeeda laba beelood oo ka taagan beer weyn oo lagu beero xashiishka taas oo ku taala deegaan lagu magacaabo Gurshiini oo ka tirsan Shabeellaha Hoose sida ila wareedyo dadka deegaanka ay xaqiijiyaan maleeshiyaadka isku hor fadhiya beerta ayaa isku haya cidda la wareegaysa gurashada xashiishka xilli muddo bil ah ay ka harsan tahay waqtiga la filayo in markaasi in dalagan la goosto bisha Agoosto bartamaheeda ayaa dalagani uu soo go'aya waana xashiishka waxa la isku haysto laakiin cidda guranaysa ayaa ah waxa la isku haysto oo lagu dagaalamayo beertan cabirkeeda waxa lagu sheegay ku dhawaad 30 hektar waxaana la sheegay in muddooyinkii dambe gacanta ay ku hayeen maleeshiyaad tubaysan iyadoo dhinac walba uu doonayo inuu kaligiis ka faa'iideysto dhaqaalaha laga filayo dalagan oo suuqiisu uu cirkaasi marayo ila wareedyo dadka deegaanka ayaa sheegay in beerta markii hore ay xashiishka ku beereen ama uu ku beeray nin lagu magacaabo Gumac balse markii dambe dagaal ay kula wareegeen maleeshiyaad ka soo jeeda beel kale maleeshiyaadkaas ayaa tan iyo xilligaas la sheegay inay maamulayeen beerta hase yeeshee waxaa dhawaan dib u soo laabtay maleeshiyaad taageersan ninkii kolkii hore beeray xashiishka oo laga raacdeeyay goobta haddana waxa uu doonayaa inay dib ula wareegaan beertiisa oo ay gurtaan wararka ayaa intaasi ku daraya in labada dhinac ay hadda isku hor fadhiyaan deegaanka taas oo markaasi dhalisay cabsi laga qabo in uu halkaas ka qorxo dagaal beeleed ciidamo ayaa goobta gaaray sida wararka halkaas ka imaanayo ay xaqiijinayaan dowladda federaalka Soomaaliya ayaa la sheegay inay ciidan u dirtay beerta kadib markii ay heshay xog ku saabsan muranka iyo xiisada dagaal ee halkaasi ka taagan iyo xashiishkan halkaas lagu beeray saraakiisha tagtay deegaanka waxaa ka mid ah taliyihii hore ee guutada 14 Oktoobar Cabdiraxiin Maxamed Muuye ka hor inta aan xilka laga qaadin iyo saraakiil kale oo kala tirsanaa ciidamada ka howlgala inta u dhaxaysa magaalooyinka Marka iyo Janaale ee gobolka Shabeellaha Hoose ciidamada ayaa la sheegay inay burburiyeen qiyaastii 3 hektar oo ka mid ah beerta balse ay ka tageen inta badan dalagii xashiishka ahaa ee halkaasi ka beernaa ilaa ay hadda ma cadda sababta loo burburin waayay dhammaan beerta mana jiro war ka soo baxay dowladda Soomaaliya ama saraakiisha ciidamada oo faahfaahinaya howlgalkaas xog aan helayno ayaa sidoo kale sheegaysa in saraakiisha ciidan iyo mas'uuliyiinta deegaankuba ay markaasi xaaladan iyagu ka weyn tahay ayna u arkaan mid aanay waxba ka qaban karin qaar ka mid ah taliyaasha guutada 14 Oktoobar ayaa si gaar ah loogu eedeeyay inay iyagu qayb ka yihiin ka ganacsiga xashiishka ee deegaanka Gurshiile ama degmada Janaale iyo dhulka ku teedsan ee webiga Shabeelle ayaa muddo dheer lagu yaqaanay beerashada dalagan balse waxaa sidoo kale la sheegay in beero kale oo aagaasi ku yaalaba uu ka baxo xashiishka ka hor inta aan al-shabaab laga saarin qaar ka mid ah deegaankaas kooxda dhaqaale badan ayaba ka sameyn jirtay oo xashiishka ayaa canshuuri jirtay baa lagu leeyahay waana dhacdo uguba oo aan weli markaasi la arag oo dadka Soomaaliyeed badankood ay si weyn ula yaabeen ugu dambeyn dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa sheegtay in Mareykanka ay kala hadashay arrimo badan oo xasaasi ah sida dowladda war ka soo baxay ay ku sheegtay dowladda federaalka ee Soomaaliya waxay sheegtay in Mareykanka kala hadashay taageerada uu markaasi joojiyay ee howlgalka Omson inay hoos u dhigayso nabad ilaalinta midowga Afrika ee Soomaaliya wasiirka arrimaha dibadda Cabdisalaan Cali Dhaay oo Qaahiro kula kulmay mudane Masad Police oo ah la taliye sare
oo madaxweynaha dalka mareykanka Donald Trump u qaabilsan arrimaha carabta iyo Afrika ayaa kala hadlay go-aanka mareykanka iyo arrimo kale oo xasaasiya. laakiin ninkan wuu cudur daartay, waxaana uu sheegay in Donald Trump uu ka niyad jabay Soomaaliya weliba dhowr jeer oo hore uu aflagaadiyey Xasan Sheekh, xilligaana aanay suuragal ahayn in mareykanka uu sii wado taageeradiisa Soomaaliya.